xubno ka socday guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo maanta soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag Ceerigaabo ayaa soo kormeeray jaamacadda Sanaag University oo tababar uga socdo howlwadeennada fulin doona hawsha qaybinta kaararka codbixiyaasha ee gobolka Sanaag waxaana ugu horeynba halkaasi warbaahinta sharaxaad ka siiyay ujeedada safarka xubnahan ka socday guddida doorashooyinka Soomaaliland afayeenka komishanka Siciid Cali Muuse iyo Cabdiraxmaan Cismaan Aadan oo xubnaha sarsare ee komishanka sida la socotaan waxa inoo qorsheysan in bisha 12keeda insha Allah bidnillaahi kariim maalinta sabtida ah ay inoo bilaabato hawsha kaar qaybinta ay gobolkan oo dhan iyo waliba gobolka Sool ay ka bilaabato annagu waxaanu nimay gobolkan Sanaag gobolka Soolna commissioners kale ayaa jooga iyaguna xagga hawsha ka qabanaya marka inay dadku isu diyaariyaan oo kaarka qaataan waxaanu jecelahay muddada faraha badan leh oo miiga 5 maalmood noqon doonta insha Allah bidnillaahi kariim magaaladana noqonaysa 7 maalmood hadhowna 14 maalmood idin ooleysa muddadaas oo dhan baa daatiin gobolka reer Sanaag haysataan maanta waxa ka bilaabmay gobolkan tababarkii ugu horeeyay ee loo tababarayo shaqaale weynaha gobolka ka shaqeyn lahaa tababari lahaa saakayo tababarkii u bilaabmay wuxuu socon doonaa 2 cisho insha Allah bidnillaahi kariim gobolada iyo degmooyinka ku kooban yahay ayna tababar bay qaadan doonaan kadibna ardayda jaamacadaha oo ka shaqeyn doonta gobolka oo dhan ayaa tababar rasmi ah la siin doonaa oo ay ku shaqeeyaan waxaan Ilaahay ka baryaynaa inay si wanaagsan oo nabad qab ah oo guul ah inagu dhamaato waxaan inta kadib doonayaa inaan baaq u diro dadweynaha gobolka Sanaag ku nool ama iska diiwaan galiyay waxaan leenahay waa fursadiinii waxa haysataan muddo kooban oo kaararka la idin qaybin doono komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu idinku boorinayaa inaad ka faa'iidaystaan fursadiina oo aad qaadataan kaararkiina ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo dadweynaha reer Sanaag ku booriyay inay ku tartamaan qaadashada kaarka codbixiyayaasha maadaama lagaga badiyay diiwaan gelintii komishanka qaranku uu soo guuleystay 4 gobol buu soo dhameeyay 2 gobol baa hadhay Sool iyo Sanaag ilaahay waxaan ka baryayaa sidii kuwii hore ay ugu guuleysteen inay iyagu ka wana ay ugu guuleystaan waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Sanaag dadka kamaynu yarin oo ka tala xunaay markii hore ee isdiiwaan gelinayay dad badan baan qaadan kaarka sababo kasta ku dhacdo tala xumay isaga daa dalkuna waa sarsanayay oo wax la lahaa gobol walba la isbiye dhiijinay waxaan aaminsanahay inaynu gobolada minaynu ka dad badannahay mooyaane ayna ka dad yarayn Yusuf Cabdi Xasan Cadde telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo.